Waan ku salaamay daawade. Muuqaalkana maanta waxaan kaga hadli doonaa waddanka ugu tirada badan qaaradda Aasiya. Muuqaaladeena hore waxaan ku soo qaadanay saddexda waddan ee ugu tirada badan leh Afrika oo kala ahaayeen waddanka Nigeria oo ahaa waddanka koowaad, halka waddanka labaad waa Ethiopia iyo waddanka saddexaad oo ahaa waddanka Masar. Haddaba muuqaalkana maanta waxaan kaga hadli doonaa qaaradda Aasiya saddexda waddan ee ugu tirada badan leh ayaan ka soo qaadan doonaa waddanka koowaad. Waddanka koowaad ee ugu dadka tirada badan leh qaaradda Aasiya waxa uu noqon doonaa waddanka China. Magaca rasmiga wuxuu noqon doonaa Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha. Waa waddan ku yaala bariga Aasiya. Waa waddanka adduunka ugu dadka badan oo ay ku nool yihiin 1.4 milyan oo qof, taasoo u dhiganta 1 bilyan iyo 400 oo milyan oo qof. Qiyaastaasi oo qiyaastii la sameeyay 2019. Badka waddankani waxa uu ku dhow yahay 1.6 milyan oo kiiloomitir square ah. Waa waddanka afraad ee ugu weyn caalamka. Dowladda maamusha waddanka Shiinaha waxay ka kooban tahay hal xisbi, waxaana la yiraahdaa xisbiga Shiinaha oo la soo gaabiyo CCP. Dowladdu waxay maamushaa 22 gobol. Markaad daawada maqashid magaca Shiina waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya dad cuna cayayaanka, xayawaanada iyo dad u nool sidii quraanjo oo kale. Farabadni waxay ka qabaan. Shiinuhu waxaa inta badan laga helaa magaalooyin ay ku nool yihiin dad ka tiro badan wadamada qaarkood. Tusaale ahaan, magaaladii uu ka soo bilaabmay cudurka saameeyay adduunka ee COVID-19 ama COVID-19 ee Wuhan waxaa ku nool 15 milyan oo qof, halka magaalo ganacsiyeedka Shanghai ay ku nool yihiin 23 milyan. Qiyaas ahaan, tirada guud ee Soomaalidu meel walba ay joogaan waxa lagu qiyaasaa 17 milyan. Haddaba haddii aan barbar dhigno magaalada Shanghai oo ay ku nool yihiin 23 milyan, waad qiyaasi kartaa Soomaalidu inta ay ka noqon karaan. Haddii aan isbarbardhig samayno qaaradda Afrika iyo Shiinaha, qaaradda Afrika waxaa ku nool dad gaadhaya 1 bilyan iyo 400 oo milyan oo, taasi oo sheegaysa in Shiinuhu ka dad badan yahay. Waxaan soo qaadano qaaradda Yurub. Qaaradda Yurub waxaa ku nool 80 milyan oo qof, taasi oo micnaheedu tahay in Shiinuhu ka dad badan yahay sidoo kale. Labada Ameeriko waxaa ku nool dad tiradoodu gaadhayaan 1 bilyan iyo 100 milyan oo qof, taasoo micnaheedu yahay in Shiinuhu sidoo kale uu ka dad badan yahay qaaradda Ameerika. Australia iska daa hadalkeedaba, Shiinuhu waa waddanka koowaad ee uu dadka badan leh adduunka. Dadka tirada intaa leeg leh waxay leeyihiin hal madaxweyne. Dhaqaalaha Shiinuhu waxa uu ku tiirsan yahay warshadaha, adeegyada iyo beeraha. Warshadaha Shiinuhu waxa ay kadideen warshadaha ku yaala Mareykanka. Tusaale ahaan, shirkad Mareykan ayaa soo saaraysa gaadhi waxay u iibgeynaysaa suuqyada Mareykanka, kaasi oo ay siinayso $20,000. Shirkad China ayaa soo saaraysa gaadhiga mid u eg oo aan waxba ku kala duwanayn, waxayna ay siinaysaa $5,000 ama $7,000, taasi oo suuqa ka saaraysa gaadhigii qaaliga ahaa ee uu sameeyay Mareykanku. Dhanka kale waxa ay xadaan disaynada. Tusaale ahaan, shirkad Mareykan ayaa disayn garaysay dhar ama mobile, kadib hackerska ama kuwa jabsada kombuyuutarada ayaa waxay jabsanayaan kombuyuutarka shirkadda Mareykanka, kadib waxay kala baxayaan xogtii. Toddobaad ama bilo kadib, shirkadda Mareykanka waxa ay ku warhelaysaa qalabkii ay disayn garaysay oo suuqyada caalamka yaala, kuna qoran tahay Made in China. Shiinaha waxaa ku yaala derbiga ugu weyn caalamka, kaasi oo dhererkiisu gaadhayo 2,400 kiiloomitir, waxaana dhisay 2,000 sano ka hor. Waxaana loo adeegsan jiray in ay iska caabiyaan ama ay ku ilaaliyaan magaalooyinkooda dadka Shiinihii dadyaga kusoo duulaya, oo waxay u adeegsan jireen qalcad ahaan waxa loo yaqaano, halkaasoo inta badan ay tagaan dadka dalxiisayaashii. 1931 Shiinaha waxaa ka dhacay xaalad kala qaybin iyo tamar darro, taasoo sabab u ahayd duulaan uu ku qaaday Jabaan kuna qabsaday waddanka Shiinaha. Dadka Shiinaha ayaa u adeegsaday addoon ahaan, kuwaas oo ka shaqayn jiray shirkadaha Jabaan ku yaala si qasab ah. Shiinaha waxaa ka dhacday dhacdo lagu magacaabo gaajadii Shiinaha ee weyneyd 1958, kuwaas oo ay ku dhinteen milyanan Shiinihii. 1960 Shiinuhu waxa uu tijaabiyey bam nuclear ah, taasoo uu ku muujinayay inuu Shiinuhu haysto hub uu ku difaaco dadka tirada intaa leeg leh. Daawada, ma aamini kartaa in qaramada midoobay khudbad uu ka jeediyay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya, markii dambena noqday madaxweynaha Somaliland Maxamed Ibrahim Cigaal? Khudbadaas oo uu ku dalbanayay in qaramada midoobay ka mid noqdo Shiinuhu, oo uu markii hore Mareykanka iyo wadamada Yurubtu ay u diidanayeen. Kadib markii uu Shiinuhu ka mid noqday qaramada midoobay, hadda waxa uu haystaa veto power-ka ama 5 dowladood ugu awoodda badan ayaa ku jiraan. Shiinuhu waa waddanka koowaad ee ugu tirada badan ciidamada lugta. Tirada ciidamada lugta ee waddanka Shiinuhu waa 1 milyan iyo 600,000 oo askari, laakiin marka lagu daro kuwa cirka badda waxa ay gaadhayaan 2 milyan iyo 300,000. Diin ahaan Shiinuhu inta badan waa bilaadiin, laakiinse waxaa jira Buddhism iyo dadka Muslimka oo hadda lagu dhex gumaysto waddanka Shiinaha, isla markaana loo ooday xerooyin waaweyn lana rabo in laga saaro diinta Islaamka. Muuqaalkani maanta aan kaga hadlaynay waddanka ugu tirada badan qaaradda Aasiya, halkaas ayuu naga eegyahay.